madaxweynaha muddaxileedkiisa uu dhamaaday maxamed cabdullaahi farmaajo oo xalay gaaray dalka qatar ayaa waxaa la filayaa inuu saacadaha soo socda la kulmo amiirka dalkaasi qatar sheekh tamiim bin xamaad al thani. labada mas-uul ayaa waxay ka wada hadli doonaan xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii dowladda Soomaaliya iyo qatar iskaga gaashan lahaayeen dhinacyada dhaqaalaha, horumarinta ciyaaraha iyo iskaashiga iyo maalgashiga. sidoo kale madaxweyne farmaajo ayaa dalka qatar ugu qaybgali doona furitaanka koobka kubadda cagta ee carabta oo lagu marti qaaday madaxda dalalka carabta si loo xoojiyo iskaashiga dhanka horumarinta ciyaaraha iyo isdhexgalka dhalinyarada shucuubta dalalka carabta. agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xaanshi ayaa sheegay in sidoo kale agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xaanshi ayaa sheegay in sidoo kale madaxweyne farmaajo uu la qaadan doono hogaamiyaasha ka soo qayb galaya munaasabadda furitaanka koobka kubadda cagta ee carabta.